الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد isku soo noqod waxaan wanaagsan waxaan rabaa inaan sii joogteeyo ama aan sii wado mushkilaadkii ilmaha oo aan ka hadlaynay aan ku sheegnay yani sagaal inay yihiin oo wali waxaan ku jirnaa mushkiladda ugu horeysay oo ah yani alghiira ama violence ayaan ku jirnaa waxaan soo sheegnay qeexeedii mushkiladaas kadibna waxaan ka soo hadalnay waxyaabaha keeni kara waxaan rabnaa xalaqada inaan uga hadalno yani ma aragtay solutionska ama daawada see loo daaweeyaa treat the problem of violence in child yani sida loo daaweeyo ama daawooyinka mushkiladaas ay leedahay marka aan ku soo qaadan doonaa waxa ugu muhiimsan markaan ku aragno cunuga mushkiladda ah violence ama alghiira markaan ku aragno waxaan isku dayaynaa cunuga inaan kalsooni aan ku abuurno athiqa nafsiya inaan nafsidiisii kalsooni aan ku abuurno self confidence isaga inuu isku kalsoonaado nafsad ahaantiisa inaan ku abuurno iyo inaan ku dhiirigelinno tilaabo kasta oo qaaday inuu guulaysto inaan ku dhiirigelinno annagana tusaalahan matalan yani ma aragtay haddii wax uu baranaa inaynu nidhaahno wax waa baran kartaa inaan ka dhaadhicinno haye markaan adeejinayno waxaas waa qaadi kartaa waxaas waa samayn kartaa inaynu ka dhaadhicinno iyo in markaasna inaan ka dhaadhicino inuu wax kasta ku guulaysan karo iyo inaynu u sheegno fashilka nolosha inuu ka mid yahay haddii hadda waxaan hadda uu sameyn waayo inuu berri samaynayo maanta haddii uu sameyn waayo inuu berri sameeyo maya haddii shaqadan uu sameyn waayo inuu mid kale samaynayo maanta haddii uu ku guulaysan waxaan inuu akhriyo inuu waxaas kale u akhrin karo haddii uu ku guulaysan waayey sheegaan inuu qaban karo inuu qabto inuu waxaas qaban karo ayaan horta aan ku abuurayna waa qodobka ugu horreysa ah inaan cunuga aan ku abuurno thiqa nafsiya inaan ku abuurno qodobka labaad wuxuu noqonayaa cunuga inaanan ciqaabin wixii isaga uu qaban waayey ama maseerkaas markii oo falcelinteeda uu samaynaa ama aan ku aragno inaanan tumin inaanan canaananin inaanan dhib u geysanin aa la rabaa iyo inaanan la barbar dhigin saaxiibadiisii aynu nidhin waa kan hebelaa joogo hebelaa kaa fiican hebelaa saas inaanan dhigin oo adiga meeshaasaad ku liidataa hebelaa waxaas kaaga fiican inaanan dhigin waa hab dhaqan aad u fiican weeye waa qodobka labaad la rabo inaynu samayno li'annahu masayrka yani wuxuu ka dhex dhashaa saaxiibada iyo walaalaha ayuu ka dhex dhashaa marka laba arrimood marka falcelin way noqon kartaa falcelin cadownimo ah iyo falcelin oo waxa waaye munaafasa tartan ah marka innaga marka waxaan ku dhiirigelinaa inuu tartamo waxaas inuu isaga samayn karo uu tartamo ayaan ku dhiirigelinaa halkii isaga uu cadowsan lahaa saaxiibadiis ama uu xanaaqi lahaa waxa isaga uu sameeyey waa samayn kartaa lee samee waa dhiirigelinaynaa taas waxa waaye waa runtii waa qodob aad muhiim ah qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa la rabo ama lagu daaweyn karo mushkiladan inaynu ogeysiino cunuga ama aan barno aan u sharaxno sideedaba inay jiraan wax la yidhaahdo furuuq fardiya wax la yidhaahdo individual differences wax la yidhaahdo yani kala duwanaansho inay jirto laleeyahay bal farahaaga itus ma siman yihiin maya ma sinna bini aadamkana ma sinna nin baa yani ma aragtay mid xoog buu leeyahay mid waa liitaa mid waa caqli badan yahay midna wuu caqli liitaa mid waa dheer yahay mid waa gaaban yahay kow shaqooyinka laftirkoodii mid waa fududahay mid waa marka nolosha waxaa la baraa inay tahay nolol isku si aan ahayn taas marka waxay ka fududaynaysaa inuu dareemo fashil
ama in isaga wax badan ay ka maqan yihiin ama dhib badan yani maaragtay haddii saaxiibadiisii ay wax heleen ama uu ka masayray in wax badan ay ka maqan yihiin ay ka fududaynaysaa wuxuu kaloo ogaanayaa isaga maanta hadduu guulaysto inuu bir guulaysan karo wuxuu kaloo ogaanayaa haddii isaga laga fiican yahay isagana kuwa kale inuu ka fiican yahay marka in sheekooyinkaas yani maaragtay sheekooyin dhacay in loo soo qaado in maxaan ku idhaahdaa isaga saas loogu sheekeeyo waxay marka daawo u tahay yani maseerka isaga haya daaway u tahay way ka degaysaa dayib qodobka afraad wuxuu noqonayaa yani competition inaan ku abuurno xubbul munaafasa yani tartan jecel inaan ku abuurno inuu tartamo challenge inuu sameeyo oo yani sideedaba yani ma uusan isdhigin uusan caajizin yani tartan wanaagsan inuu sameeyo iyo waxaan leenahay inaad waxaan sameyn weysid ama aad ku fashilantay ama aad gaari weysid macnaheedu ma ahan yani boostejid ugu dambaysa inaad joogto aakhirul madaaf ma joogtid laanno fashalka sidiisaba wuxuu keenayaa guul buu keenayaa saasaa loogu sharxayaa sida dad waaweyn ama loola hadlayaa arrimahaas markii loo sharxayo si fiican baa loogu sheekaynayaa marka waxaasoo dhan wuu qaadanayaa marka ilmaha maxaa yeelay waa wax yani waalidka ama dadka waaweyn warkooda way qaadash og yihiin haddii si quman oo degan wax loogu sharxo haddii maseerkan uu ka yimid yani ilmo dhashay oo walaalkii hooyadii ay dhashay uu ka masayray oo wixii isaga uu heli jiray uu waayey maseerka uu sidaa ku yimid ma canaananayno ma ka hortagayno bal shaqaa loo dirayaa waxaa la leeyahay walaalkaabaa dhashay ama walaashaabaa dhashay masaasada u soo qabo dharka u soo qabo waxyaaba isaga uu awoodo waxaa la tusayaa nolosha inay tahay tacaawun iskaalmeen inay tahay la tusayaa walaalkaaga caawi biri garabkaagu istaagaya sida dad waaweyn ama loogu sheekaynaya taas marka waxay ka baabi'inaysaa masayrkii waxay keenaysaa inuu jeclaado walaashiisa ama walaalkiisa inuu jeclaado qodobka kale oo shanaad oo lagu daaweyn karo masayrka wuxuu noqonayaa tacwiidu طفل منذ الصغر على تجنب الأنانية والفردية والتمركز يعني عنقة إن نقن أقد لجنو عادة أقد لجنو أن كتر بينه يرانتي سبا إنه كفوا هذا صدق شيء الأنانية ما فهمت ما لا وحواي الأنانية إنه كفوا هذا إيو الفردية إنه كفوا هذا كلمة يعني إنه كلجي يعني ما أردتي عجبيو أما كلجي إنه نوراضو إن ما أردتي أن كفوين إيو التمركز يعني أنت هسدان كفوينه وهو عنقة أن كنت أوبرنو إنه أناني إسك إلاليو إنه إسك إلاليو مهانكو إلى هذا يا فردية individual nolosha inuu iska ilaaliyo haddii مثلا intaas aan iyo tamarkus waxa la yiraahdaa tamarkus hawla daad baa la yiraahdaa tamarkus hawla daad waxa waaye self centered yani isaga la nafsidiisii inuu isku koobo aragtidiisii isaga la inuu isku mashquulo intaas inuu ka fogaado ayaa cunuga marka hore aan ku tarbiyeynaynaa bulshaawi aan ka dhigaynaa waxaan kaloo cunugaas aan u sheegaynaa si looda mushkilada in isaga xuquuq uu leeyahay waajibaadna lagu leeyahay dad bulshada uu la nool yahay hadday yihiin waalid hadday yihiin walaal hadday yihiin saaxiibo inay xuquuq ku leeyihiin isagana in xuquuq uu leeyahay waajibaad inay ku leeyihiin isagana xuquuq uu leeyahay aan idhaahdee aan baraynaa hab dhaqanka wanaagsan as-suluuk as-saxiix ayaan baraynaa ya waxa waaye correct behavior ayaan baraynaa suluuga sax ah dhaqanka saxda ah marka sida yani runta inuu sheego sida inuu daacad noqdo waalidiin waxaa jira ilmahooda ayaga ma aragtay ayaga beenta u bilaabaya maya qaab sax aan u tarbiyeynaynaa dhaqan kasta si sax lagu tarbiyeynaa ugu dambeyn marka waxaan isku dayaynaa si maseerkaana u baabeeno cunuga inaan ku milno guruubyo cayaar ama sports team يعني جروب عيارات وهدي عيارها عادي هدي يهين أما هدي يهين بنون هدو يهي
inaan gruub u samayno uu ku mashquulo uu saaxiibadiisa uu u quuro marka waxyaabahaas marka cunuga waxay ka fududaynayaan ama ay ka baabi'inayaan mushkiladan maseerka maxaa yeelay haddii aanan daawanin mushkiladan maseerka noloshiisay la haraysaa waxbarashadiisay la haraysaa marka xalaqada saddexaad halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa aad baad u mahadsantihiin halkaas waxaan ku barannay mushkiladda ah alghiira ayaa halkaas aan ku dhammaynay marka insha allah waxaan isugu imaan doonnaa xalaqadaha dambe aad baad u mahadsantihiin